halkan waa xarunta wararka waxaad ku soo dhawaataan warar falanqeyn iyo dhacdooyin aanu halkan ku baahino kuna falanqeyno waxyaabaha daawa doontaan barnaamijkan aanu ku soo gudbin doono waxa ka mid noqon doona Somaliland waxay shuruud ku xirtay wadahadal ay la gasho Xasan Sheikh iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaan soo gudbin doonaa ilaa iyo dhowr waa 7 qodob oo ay dawladda Soomaaliya ay ku diidan tahay maamulkaasi Somaliland inay ku hortagto waxaan soo gudbin doonaa Faysal Cali Waraabe oo ku yimid wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland sheegayna in Muuse Biixi uu matalo maamulkiisa ama xisbigiisaasi kulmiye waqtigan uu ka dhamaaday sida uu ka dhawaajiyay duqeymaha Mareykanku miyay xiriir la leeyihiin caawinta al-shabaab waxaan soo gudbin doonaa hadduu alweeraal ka noqdo saaxiibada sida tooska nagu xirano warbixin xasaasi ah oo laga soo daabacay arintaasi qodobada iyo kuwa kale ayaa daawa doontaan soo dhawaada oo ku biira dawadayaashii nagu xiran haddaynu ku bilowno Somaliland Biixi waxa uu shuruud ku xiray wadahadal uu la galay Xasan Sheikh Maxamuud koor intuu uusan ka dhaqaaqin Somaliland madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu maanta safar shaqo ugu ambabaxay dalka Djibouti isagoo dhinaca kale shuruud adag ku xiray wadahadal uu la galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud booqashada madaxweynaha Somaliland ayaa waxay qaadan doontaa maalmo kooban sida ay shaacisay xarunta madaxtooyada maamulkaasi iskii ugu dhawaaqay madax banaanida sidoo kale waxa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi safarka ku weelinaya wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Ciise Maxamuud Kayd iyo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Cabdirashiid Xaaji Ducaale Gambi waxa sidoo kale la filayaa inuu kulamo la yeesho madaxda sare ee Djibouti oo ugu horeeyo madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle socdaalkan wuxuu ku aadayaa xiliyaatan Djibouti uu ku sugan yahay madaxweynaha dawladda federaaliga ah Xasan Sheikh Maxamuud oo maalin ka hor soo bandhigay qorshihiisa ku aadan wadahadalka Somaliland dhinaca kale madaxweynaha Somaliland oo ka hor inta uusan u bixin Djibouti la kulmay wakiilada Turkiga iyo Norway u qaabilsan wadahadalada labada dhinac ayaa miiska soo saaray shuruudo uu ku xiray wadahadalada la qorsheynayo in markale dib loo bilaabo qodobka koowaad Jamhuuriyadda Somaliland waxay ku adkeynaysaa ayaa la yiri in la helo hanaan laba dawladood iyo xal markaasi ku dhamaada laba dawladood kala madax bannaan sababtoo ah waxaanu ahayn laba dawladood oo xor ah oo iskood u madaboobay 1 Juulaay 1960 balse kala noqday 1991 waxaan inta dheer Somaliland waxay 30 sanadood la soo dhaafay ahayd dawlad madax bannaan oo ku nool nabad iyo xasilooni muddadaasi Somaliland waxay hirgelisay wareegyo badan oo doorashooyin xor iyo xalaal ah Somaliland waxa ka dhacay 5 markaasi xil wareejin madaxweyne oo nabad ah 3 ka mid ah iyaga oo loo marayo doorashooyin toos ah ay qabsoomeen qodobka labaad dhammaan heshiisyadii hore waa in la ixtiraamaa oo la hirgeliyaa si degdeg ah tani waa habka kaliya ee lagu dhisi karo kalsoonida waa inuu jiraa hanaan dhexdhexaadin oo caalami ah oo damaanad qaadaya fulinta natiijada ka soo baxda wadahadalka waa inay jirtaa xoghayn maamusha kaydinta xogta isla markaana xoghayntu waa inay ku sifowdo dhexdhexaadnimo isla markaana ay u leedahay karti iyo xirfad hawshan waa inuu jiraa mabaadi'dii muhiimka ah iyo xeerdhaqan code of conduct oo hanaanka wadahadalku saldhig u noqon doono waa inuu jiraa ajenda cad oo qeexaya khilaafka u dhaxeeya labada dhinac si looga wada hadlo arrimaha udub dhaxaadka u ah khilaafka wadahadalku waa inuu ku soo gabagaboobo waqti xadidan ayaa sidoo kale qayb ka ah arintaas oo laga dhawaajiyay Faysal Cali Waraabe waxa uu sheegayaa in Muuse Biixi uu yahay hogaamiye ka socda xisbiga kulmiye aanu ahayn madaxweyne maamulkaasi Somaliland ah waxa uu ka hadlay sidoo kale Soomaaliya iyo Somaliland wadahadalkooda gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCID Faysal Cali Waraabe warbixinta kula hadlay magaalada Hargeysa ee Somaliland ayaa ka hadlay arrimo ku aadan wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland kadib markii uu madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud soo bandhigay qorshihiisa ku aadan in la sii ambaqaado dooda labada dhinac ugu horreyn Faysal Waraabe ayaa ka hor yimid in xilligan la furo wadahadal u dhaxeeyo xukuumadaha Hargeysa iyo Muqdisho sidoo kale wuxuu tilmaamay inaysan wax shaqo ku lahayn arrimaha gudaha ee Soomaaliya sidoo ku dooday wadahadal la furo Somaliland waxay u tixgelin doontaa mid aan shaqeynaynin iyo fargelin ugu sameeyay arrimaheeda gudaha waxba nagama gelin 5 gobol ee qabaa'ilku ka taliya ee Soomaaliya ayuu yiri gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCID Faysal Waraabe oo hadalkiisa sii wata
ayaa weerar afka ku qaaday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isagoo tilmaamay in uusan metelin shacabka Somaliland. siyaasigan oo hadalka la gamban inta badan ayaa shacab ka qaaday in sharciyadii ay ka dhamaatay Biixi isla markaana kaliya uu metelo xisbiga kulmiye. Muuse Biixi ma haysto sharciyadu ku metelo reer Somaliland, kaliya wuxuu metela xisbigiisa kulmiye ayuu yiri mar kale Engineer Faisal Cali Waraabe. si kastaba wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland ayaa sanadihii ugu dambeeyay hakad galay, balse dowladda federaaliga ah ayaa haatan shacab ka qaaday inay dib u bilaabayso dadaalkeeda kulan uu markaasi madaxweynuhu la yeeshay danjiraha Turkiga Maxamed Yilmaz iyo siihayaha xilka danjiraha Norway ee arrimaha Soomaaliya Haakon Svane. Waxaa lagu wadaa in Djibouti ay kulan ku yeeshaan labada hogaamiye waa Somaliland iyo Soomaaliya, kuwaasi oo lagu wado inay wada gorfayaan arrimo dhowr ah. sidoo kale socdaalkaasi waxaa la maaniyaa bixinta iyo ka qaybgalka xafladda meher ama guur ee Saadaq Umar Xasan John iyo sidoo kale gabadha uu dhalay Ismaaciil Cumar Geelle. duqeymaha Mareykanku waxaa lala xiriiriyay caawinta Al-Shabaab sida lagu baahiyay warbixin laga qoray duqeymaha Mareykanka oo markaasi la beegsaday argagixisada ka howlgasha Soomaaliya ayaa soo bandhigay dhibaatooyin naxdin leh oo ka mid yihiin dil lagu waramay in caruur loo geystay ayaa lagu yiri warbixinta. maqaalkan oo laga sameeyay baaritaan ay sameysay hay'adda aan macashdoonka ahayn ee PAX oo laga leeyahay Netherlands ayaa dalbatay in weerarada cirka ah laga fulin doono goobaha ka baxsan ama laga fulin goobaha ka baxsan arrimaha dagaalka. waa furimaha dagaalka. majalada The Daily Priest ayaa soo koobtay warbixinta oo diiradda lagu saaray Jubaland oo ah maamul goboleedka kaliya ee ka jira Soomaaliya, kaasoo gobol dhan ay ka maamulaan kooxda xiriirka la Al-Qaacida. Yahoo News oo soo xiganaysa faahfaahinta ayaa faallay ka diyaarisay warbixintan waxay diiwaan uga dhigeen sida duqeymaha Mareykanku ee ka dhanka ah argagixisada ay u caawiyaan koox argagixiso dacaayad iyo xubno cusub. Jubaland ayaa ka mid ah meelaha duqeymaha diyaaradaha Mareykanku ay si joogto ah u dhacaan tan iyo markii Ameerikaanku bilaabeen howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab Soomaaliya sanadkii 2007. saameynta howlgallada Mareykanka ee ka dhanka kooxda ku yeelanayaan shacabka Jubaland ee waxba galabsan ayaa inta badan lagu soo qaadan wararka ugu muhiimsan Soomaaliya ayay qormadu tibaaxday. tafaasiisha ayaa intaas ku dartay in kastoo Mareykanku duqeymaha ku dilay hogaamiyaal muhiim u ah Al-Shabaab, haddana ma aysan markaasi baajin awoodda kooxda u leedahay inay qaado weeraro hor leh. PAX oo markaasi wareysatay shacab ay duqeymuhu saameeyeen mas'uuliyiin iyo xubno ka soo goostay Al-Shabaab ayaa xustay in duqeymaha ay markaasi dacaayad u yihiin Mareykanka, balse kooxdu ay xubno cusub ku heshay maadaama rayid ay ku dhinteen. cawaaqibka aan la qorsheynin. inkastoo dadku ay necib yihiin Al-Shabaab inay ku hoos jiraan nidaamkooda, haddana waxay isweydiinayaan haddii howlgallada cirka ah uu yahay mid sugaya ammaankooda ayay hoosta ka xariiqday hay'addu. hay'adda ayaa ku dartay waxay u badan tahay in duqeymaha lagu dilo 4 ilaa iyo 3 xubnood oo Al-Shabaab ah, hase haatee waxyeelada shacabka ah ka soo gaartay aan la sheegin ayaa ah mid xad dhaaf ah. barakac, burbur hantiyadeed, khasaare nafeed iyo markaasi dhaawac nafsi ah ayaa sidoo ku cad warbixinta waxay yihiin cawaaqib aan la qorsheyn oo ka dhashay howlgallada sida ay markaasi si madax badan looma xaqiijin karayo sheegashadan wargeyskaasi uu daabacay ee uu ka qoray arrimahaasi, balse inta badan warbixinta ayaa ku saabsan duqeymo dhanka cirka ah oo la qaaday intii uu jiray maamulkii Donald Trump ayaa lagu soo afmeeray qormada oo lagu xusay in waxda difaaca Mareykanku aysan weli ka jawaabin eedeymahan markaasi la jeediyay ee ku gadaaman in duqeymaha uu Mareykanku fuliyo ay inta badan ka dhashaan waxyeelo rayid ah sida warbixintaasi lagu soo daabacay majaladaasi ama markaasi hay'adda aan macashdoonka ahayn ee PAX oo laga leeyahay Netherlands. inta ayaa ku dhaafnaa barnaamijkan saaxiibada sida tooska inagu xiranow. halkan waa xarunta wararka. haddii aad ku cusub tahay ku biiro ka mid noqo dawadaashii nagu xiran adigoo la garanaya shirgaranaya qaybta hoosan araahdaadii waxay kula tahay ku dhaafaya. tanu barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono waxaan idin dhaafnaa oo idinkaga tagnaa sida ay nabadiina amaana Allah. hilmaamin inaad la wadaagto saaxiibadaada wararka falanqeynta iyo dhacdooyinka aanu halkan ku baahinno kuna falanqeyno daawadayaal saaxiibayaal.